Audio Jungle. Audio Jungle. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام waxaad kusoo dhawaataan channelkeena Somali Share Education Network. fadlan haddaad tahay qof nagu cusub waxaan kaa codsanayaa inaad channelka subscribe ii saartid, sidoo kale gambalaalka aad furatid si ay kusoo gaaraan muuqaaladan soo dhigayno. muuqaalkan maanta waxaan ku qaadanaynaa qaabka aad computerkaaga ama laptopkaaga ugu dhex samayn lahayd Wi-Fi internet. طبعا waxaa dhici karta goob shaqo adigoo joogo inaad computerka shaqada aad isticmaalaysid, balse uu internetkaas aad rabtid inaad isticmaashid inaad mobilkaaga ku isticmaashid. si aad mobilkaaga u isticmaashid waxaa u baahan tahay inaad numberka passwordka haysid, balse haddaad passwordkaada haysan misena passwordka computerka dhexdiisa uu kusoo muuqan waayo, ama aan dhahno computerkaas internetka isticmaalaya oo yahay cableka internetka fiilada caadiga ah. si aad internetkaas mobilkaaga ugu isticmaashid waxaad u baahan tahay kaliya applicationkan maanta aan kula wadaagayo. magaciisana waxaa la yiraahdaa Maris Wi-Fi. applicationkan markaad soo degsatid haddii aad u baahan tahay waxaad ka heli doontaa muuqaalka hadda aad daawanaysid descriptionkiisa. طبعا marala markaad soo dejisidna weerarkaad ka saaraysaa sidaan ay ku noqonayaan. kadib applicationkan ayaan ku install gareynaynaa. si aan applicationkan ugu install gareysano double click ayaan leenahay. kadib waxaa leedahay yes markaad dhaarid halkan haddee tigta ay ku saarna iska fiiri, hadday saaran tahay sideeda ku day. kadib install now ayaan leenahay. okay, mar alla markii aan applicationka ku install gareynay waxaan sugaynaa in oo applicationka noo soo kaco automatically. saad arkaysaan automatically applicationkii wuu noo soo kacay. wuxuuna leeyahay waa diyaar isticmaalkiisa. halkan waxaa ku xusan Wi-Fi name, taasoo micnaheedu ay tahay Wi-Fi-ga magaciisa waa ka halkan ka muuqdo. hoosna waxaa ku xusan Wi-Fi-ga passwordkiisa. marka haddii aad u baahan tahay in aad wax ka bedeshid Wi-Fi magaciisa ama passwordka, waxaad sameynaysaa meeshan ay ku qoran tahay qalinka aad kala gelinaysaa. markaad kala gelaysid meeshan waxaa ku xusaysaa magacaaga ama Wi-Fi-ga magac oo qaadan doono. hadda tan aan iska dhaho maha intaan ayaa naga badan. kadibna save ayaan leenahay. sidoo kale haddaad u baahan tahay inaad passwordka aad bedeshidna isla meesha ku noqonaysaa. hal mar waa bedel kartay, balse aniga ayaan ka tagay. waxaan leeyahay passwordka intaan way ugu badan tahay aan soo yareeyo 1 2 3 4 5 soma. kadibna save ayaan leeyahay, laakiin wuxuu iga codsaday inaan 8 number ka dhigo. okay, ilaa 8 aan geeyo marka 1 ilaa 8. kadibna save ayaan leenahay. save markaan dhahno haddeertaan applicationkeena magacana waan ka bedelanay, sidoo kale passwordkana waan ka bedelanay. wuxuuna diyaar u yahay in aan mobilkeena ku isticmaalno. waxaan sugaynaa kaliya kastaan halkan ay ku xusan tahay in hotspot is retrying, yani dib ayuu u soo shaqeynaa. micnaha wuxuu ka wadaa waxay tahay maadaama passwordka aad bedeshay, yani dib ayuu isku hagaajinayaa. mideeda kale marala markuu hagaagana wuxuu joojinayaa calaamadaas booditaanka. haddeertaan saad arkaysid wuxuu kusoo qoray halkan in Wi-Fi hotspot started, yani hotspot Wi-Fi wuu shidan yahay, enjoy it, iskaga damaashaad. si aan u isticmaalno waxaan imaanaynaa dhanka mobilka. halkan ayaan waxaan ka tagaynaa Wi-Fi-ga. markaan halkan aan ka tagno waxaa loo baahan yahay in oo noo soo qabto moha. waxyar aan sugno. okay, Wi-Fi-ga markaan soo gareynay magacii moha waa noo soo baxay. marka waxaan leenahay aan ku xirno in halkan waxaan gelinaynaa passwordkii 1 2 3 sorry inaan muujiyaa passwordka 1 2 3 sorry 3 4 5 6 7 8.
سيد مكان لأنه باسورد كونه سحية كده بنحل لنا connect مكان لهني إنه automatically باسورد كيو كحرمي إن هدرتان أنت نسان أركينا وحوليه هاي إن موبايل لي هذا Galaxy A14 ayaa ku soo xirmay Wi-Fi-gaaga ogow marka halkan waxaa loogu talagalay in Wi-Fi-ga ka maamushid dadka ku soo biirayaan halkan aad kala socotid haddii aad in dad badan hadii aadan password-kaas siinin aad ku aragtidna waxaad awood u leedahay inaad ka baloggaraysid si uusan u isticmaalin internetka halkan ka samaysay asigoonan yani ogolaashadii aan ka haynin haddaba aan tijaabino waxaan aadaynaa YouTube-ka waxaan ka fiirinaynaa inuu Wi-Fi sax noogu xiran yahay in kale hadeerta waa arkaynaa waxaan halkan ka arkaynaa inuu Wi-Fi-geena noo shaqeynayo oo clear uu yahay muuqaal hadaa shididne waxaad arkaysaa in ay si fiican u shaqeyn doono ma aqaano waxaan geeyaa laahay midkan aan ku dhufto 2023 I said haddaba two goals. waa automatically was to be able to read from in memory speedkiisa iska from Surah fiican yahay An-Nas masha to Allah Surah Al-Furqan. yani Number two, aad iyo aad it u was to make shaqeynaya 1 million halkan computer markaan kusoo laabano meeshan Alhamdulillah, we waxaad are getting arkaysaa close to the end of internetka xawaaraha 2023 and those oo goals naga have been isticmaalayo accomplished already. haddii aan u baahano waan ka joojinaynaa haddii kale The sidiisaan ku past few dininaa years, haddaba I've muuqaalkan mastered kaliya not waxaan just the jeclaystay inaan art kula of wadaago setting applicationkan goals. haddaba muuqaalkan waxaan jeclaystay kaliya inaan kula wadaago applicationkan waadna ku mahadsantahay daawashadaada videogan halkan uu keek yahay anaga hilmaamin inaan muuqaalka like u saartid intaan muuqaalka xiga ku kulmi doono waxaan idin leeyahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.